salaan kadib doodeedna hore u galeynaa waa u mahad celinayaa guddiga labada guddi shaqada adag ay soo qabteen iyo waqtiga iyo juhdiga ay geliyeen intaas kadib doodii socotay ayaan wax yar ku darayaa qodobada inta badan xildhibaanadu waa ay taabteen qodobka koowaad faqradiisa shanaad waxay leedahay gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagama xadgudbaan marka waxaan rabaa inaan ku darno qodobkaas gobonnimada iyo madax banaanida midnimada qaranka bad iyo berri iyo xuduudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu xadgudbaan in bad iyo berri lagu daro qodobka labaad faqrada labaad ka hadlaysa islaamku waa diinta dadka iyo dalka jamhuuriyadda in laga dhigo oo dadka iyo dalka lagu soo daro iyo diinta dadka iyo dowladda jamhuuriyadda in lagu soo daro ayaan ku kabilaa qodobka labaad faqradiisa koowaad qodobka saddexaad oo guddigu ku soo kordhiyey waa aad u qurux badan yahay waa mahadsan yihiin guddiga waxaa reeban meesha caayida ay ku qoran tahay caayidda in lagu bedelo oo ereygaas sidaas loo fasiro haddaan u gudbo qodobka saddexaad faqradiisa saddexaad wuxuu leeyahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay guddiga u soo qoreen waxay ku dhisan tahay mabaadi'da aasaasiga ah ee nidaamka awood qaybsiga federaaliga ah marka awood qaybsiga nidaamka federaalka ayuu sidii hore inuu ku habboon yahay ayaan isleenahay qodobkaas qodobka afaraad faqradiisa labaad waxay leedahay cid kastaba dhammaan hay-adaha dowladda ururada siyaasadeed iyo ururada bulshada waxaa waajib ku ah inay u hoggaansamaan ku dhaqanka iyo ilaalinta dastuurka qodobkaas wuxuu fasirayaa isla qodobka ka koreeya shareecada islaamka ka sokow dastuurka jamhuuriyadda waxaa xeerka ugu sarreeya dalka isaga ayayna u hoggaansamayaan xukuumadda heer kasta oo dowladeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuuna hagayaa curinta iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dowladda marka labadan qodobkan hadda cusub faqradda cusub oo labaad faqradda koowaad fasiraysa waxaan isleeyahay marka inaan loo baahnayn ayay noqon kartaa afka rasmiga ah sida laga dhawaajiyey wuxuu ku dhan yahay af Soomaaliga in la yiraahdo kadibna luqadaha kale oo carabiga ah luqadda labaad inay noqoto sida hadda ku qoran afka Soomaaliga in lagu soo kordhiyo dadkii hadda halkan laga turjumay oo muddada dheer hadda ay doodu socotay aan waxba kala socon dadkii baahiyaha gaarka qabay oo ay ka mid yihiin dadka dhagoolayaasha iyo noolayaasha ayaguna xuquuq ay leeyihiin haysta iyo calanka qodobka lixaad waxaan jeclaan lahayn in sidiisii hore lagu daayo oo calanka jamhuuriyadda federaalka sida lagu muujiyay qaybta ee jadwalka koowaad waa layli buluug furan oo dhexda kaga taalo xidig cad oo 5 gees ah madaxyo siman leh marka in baycadka laga saaro oo sidaas fasiraadiisu halkaas ay ku caddahay lagu daayo ayaan soo jeedin lahaa qodobka afraad farqada lixaad wuxuu leeyahay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka marka dowladaha xubinta ka ah waxaan soo jeedin lahaa in maamulada loo bedelo maamulada xubinta ka ah dowladda federaalka oo meel kastoo dowladaha xubinta ka ah meelo badan aan ku aragnay in maamulo loo bedelo dowladnimadii muxuu ahaa la isku daayo qodobka toddobaad farqadiisa koowaad waxaa soo noqnoqotay gobonnimada Soomaaliya waxay koobaysaa dhulka jamhuuriyadda gobonnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay koobaysaa geyiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan
bariga badaha webiyada jasiiradaha iyo ururada hoose hawadooda sare iyo gerigii qaaradeedka iyo badana ka buuxda marka waxaas in iyadaas laga saaro oo gey qaaradeedka dhul iyo biyo laga dhigo oo iyadaas tirada badan soo noqotay laga saaro ayaan soo jeedinaynaa qodobka toddobaad isla farqadiisa saddexaad sida laga waramay farqada dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee khilaafaadka isuudimaha ka dhasha iyadana qodob muhiim ah inuu yahay aaminsan saddex xildhibaanada hore ka hadleen asagana in lagu soo celiyo isla qodobka afraad wuxuu leeyahay xuduudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa xuduudihii ku astaasnaa dastuurkii 1960kii hoos qodobka shanaad waxaa ku qoran xuduudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tilmaamo bixinaya waqooyiga gacanka cadmeed waqooyi galbeed Jabuuti marka qodobkan asaga isdiidan 60kii Jabuuti ma jirinba dalka Jabuuti la yiraahdo Soomaaliya kamid ah hoosna tilmaamuhu ku sheegay marka in la saxo u baahan yahay qodobkaas oo labadaas qodob la iswaafajiyo qodobka sideedaad wuxuu leeyahay sideedii hore inay ku habboon tahay shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed in Soomaaliyeed lagu daayo isla qodobka sideedaad farqadiisa afraad oo diidmada iyo laalista jinsiyadaha ka hadlay waxaan rajaynaynaa in sidiisa lagu soo celiyo sida laga wada hadlay waxaan rabnaa marka in jinsiyadda qodobo cusub lagu daro oo ay ka mid tahay ilmaha uu dhalo aabba haysta dhalashada dalka ama hooyo haysta dhalashada dalka uu qaadan karo jinsiyadda dalkaas macnaha hooyo iyo aabbo walba inay u siman yihiin jinsiyadda hadduu aabbo dhalay haddii hooyo dhashay inay muwaadin noqon karaan dalka ay muxuu ahaa ay ku abtirsadaan iyo sidoo kale qof walba ku dhashay gudaha dalka Soomaaliya inuu muwaadinimadiisa uu xaq u leeyahay sida adduunyadu ay u ictiraafsan tahay qodobka ugu dambeeya sagaalaad waa laga wada hadlay oo wuxuu qeexayaa maqaamka magaalo madaxda meelaha qaar waxa laga yaabaa type inuu jiro magaalo madaxda Muqdisho waa okay qodobka intiisa dhimanay ku aadan dib ayaan u dhiganaynaa oo maqaamka ka hadlayo sida laga wada hadlay dastuurka dalka waa shaqada uu leeyahay baarlamaanka maanta dad xildhibaano badan halkan ka hadlay ayaa war ku rogay oo yiri dastuurka waa in tashi badan u baahan yahay marka dastuurka hadda dastuur cusub lama dhisayo dastuurkan dastuur laga soo shaqeeyay oo ay dadka Soomaaliyeed ay ka soo shaqeeyeen oo lagu soo qoray inuu baarlamaankii sagaalaad ka shaqeeyo oo xaq u lahaayeen ayaa baarlamaankii 11aad soo gaaray marka shaqadan waxa iska lahaa baarlamaanka labadiisa aqal maantana waa hor yaala muddo dheerna waa laga hadlay oo soo noqnoqdo warkaas waxaan rajaynaynaa marka sida labada aqal labada guddiyo loo xil saaray ay qodobada 49 iyo 90 farqadood ay ugu soo qoreen waa soo jeedintooda annaga laga rabaa soo jeedinteena inaan ku darno waxa ayaga dheeraadka ku ah laga saaro la iswaafajiyo wax dalkan cuntama aan ka soo saarno waana wax golayaasha hor yaalo shaqo ay muxuu ahaa bilaabatay socotayna meel fiican maraysa inay taan aaminsanahay waxaana nasiib u yeeshay inuu dhameystiro dastuurka baarlamaanka 11aad labadiisa aqal dhammaan marka asxaabta siyaasiyiinta waxaan leenahay dastuurka qulubta loo furo oo ha laga daayo ducaynta iyo gacmeynta yaana indha siyaasadeed lagu fiirin dastuurkan aan ku fiirin indha sharci iyo baahida dalkan uu qabo inuu helo dastuur dhameystiran aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.